wiilashii waardiyaha ka ahay ama ceelka joogay ama ilaalada ka ahay hantidooda ku badbaadsanayeen ayaa xalay ciidamada dawladda oo markaas ayagana kolley uun shaqo dawladeed u hayo dusha wax lagu haysto garbaha lagu haysto ma ahayn kuwa jidka lala taagan yahay ma ahayn kuwa si shakhsiya qab loo haysto ma ahayn kuwa bannaan yaala ma ahayn kuwa guryihii iyo ceelkii oo looga shaqaynayay ama lagu ilaalinayay lagu qaato waay waxaan dawladda federaalka Soomaaliya ka codsanaynaa in nimankaasi iyo hubkii lagu qaataba in ay macnaha si sharaf leh oo wanaag leh ay gacanteena ugu soo celiyaan ma diidana annaga dawladnimada ma diidanin dad wax ku dhibaateynaya haddii ay yihiin annagu waxaan ka ugu soo horjeedna ma jiraan waa ayidsanahay dawladnimada waxa ay raadinayaan annagu waan ognahay mana tarafsanin oo hadda dawladdiidna mani laakiin hub guri ku jiro oo ilaahay kuma daraadee baqaarkii iyo dukaamankii dhexdooda inta la wada jijibshay laga soo baxsaday ceelkii lagu waardeynaa laga soo baxsaday hub aan jid lala taagnayn aan dariiq lala taagnayn ama nin garabkiisa aan ku jirno laga soo bixin hadda taasi xoogaa waxaan u aragnaa inay halbeegsi ay tahay marka annaga dawladda waxaan ka codsanaynaa in hubkeennii iyo wiilashii ay gacanteena ka baxsheen inay si nabad ah gacanteena ugu soo celshaan haddii wax dambiya ay leeyihiin iyo wax tirintiisa ay leeyihiin ay caddeeyaan waxaan ka rabnaa dawladda inay caddeeyaan hubkii iyo nimankii ay waqteen ee guryaha ay kala baxeen ee weliba ay kala baxeen dukaamankoodii iyagoo ku dhex jiro oo jiifo lagala baxsaday waxaan ka rabnaa qaabkii ay ku timid iyo wixii ay ku timid inay si cad ay u caddeysaan ka rabnaa dawladda waxaan kaloon u baaqaynaa baaq u diraynaa xildhibaanada dawladda federaalka nagu matala iyo midda koonfur galbeed iyo saraakiisha sare ee ciidamada ee beel ahaanta annaga hadda markaas dhibka hadda ka sheeganaya nagu matala inay arrinkeena wax ka qabtaan aragti gooniya ay ka yeeshaan waxa aan sheegaynana arkaan annagu dawladda haddii aan dhib ay nooga qaadatay hubkaasi uma cawaadneen uma nimaadneen warna kama sheegno laakiin hub annaga meel hadda qabiilo hub looga qaadayo annagu hadda ma ogin tikreeto dawladeed oo soo baxdo hubka dhigisana ma ogin hub aanan ilmaheena hantideenna iyo xoolaheena aan ku ilaashanaynay aa la qaatay wiilashii wax ilaashanayay aa lagu watay wax hadda gooniyaho hadda oo tariifaahoo lagu qabtay ama lagu caddeynayana annagu ma nogin waxaan ka rabnaa marka dawladda inay caddeyso wixii hubkeeni iyo dadkeeni noo qaatay waxaa kaloo baaq iyo farriin aan u diraya xildhibaanada 7 xildhibaan iyo sanadka iyo wasiirka cadaaladda ee dawladda inay arrinkaas soo fargeliyaan dadkooda dhibaataysan ee halkaas ku haysto ee hubkoodii iyo raggoodii la watay iyadoo wax daliil ah aan markaas hadda gooni aan ognahay sida aysan jirin annaga oo la diidanayn inay wax la qabto wiilashii hubka laysku qaatay inay caddaadaan aan rabnaano waxaana caddeynayna ma ogolin mana aqbalayno laakiin xoolaaleeyahan nahay wax dhibaato oo dawladdan annaga ay nagu qabtay ama annaga ay naga tabayso ma jirto weligayna meeshaan deganeen ebadkayna weerar iyo deegaankeeda leeyahay ma arag mana maqal wax hadda dembi hoon leenahay meel aan ku ognahay ma jirto waxaan rabnaa dawladda federaalka inay macnaha arrintaas waxay ku samaysay ama ay ku falkisay kulli waa wax iyadoo ay og tahay annaga waxba kama ogin caddaynaan ka rabnaa dembigaas muu naga soo galo waa rabnaa inaan hantidayna xoolahayni oo isku ilaashayno oo amniya oo meel amniya ku jiro oon jid taagnayn oo wax loo geystay aysan jirin oo deegaanka wax dhibahoo dawladda loogu geystay afartiisa geystay aysan jirin in weerar cawo madowsiyad saaca oo habeennimo oo iska yimaado haraati wax dhammaan ku wada qaado wiilashii la qafaalo qoryihii la qaato ceelkii la dansho la cabaayay ilaa hadda ceelka waa dansan yahay ninkii ceelkaas mas-uulka ahay ragga la wato ku jiraa furaha jeebka ugu jiray waa lagu qafaashay dadka waa ooma yihiin meeshaas dhibaato weyn ayaa naga soo gaartay waxaana ka tabahaynaa dawladda federaalka waxaan rabnaa shacabkeedii aan nahay oo weliba haddana dadka oo birimageedada u liita ayaan nahay baadiyahaasankuna oon badan ayaa jiro abaar badanaa jirto dad dhibaato ka bixi kara maahin waxaan rabnaa in arrintayna dib loo qaabeeyo oo dulmigaas muu naga soo galay la dabagalo oo
xildhibaanadeena iyo dadka madaxdeena iyo saraakiisheen sharciga macnaha jidkaas dawladda xaggeeda nooga xisaabsan inaan waxaan rabnaa dabagal lagu sameeyo warkaas jawaab degdeg nagala siiyo si degdegna ninka ceelka waa xiran yahay ninka furihiisii wixiisa wata waa xiran yahay wuxuu ku xiran yahay nin ceel iska joogo oo masaakiina iyo ilmihi la ilaaliyahay ceelka alla isku watay wax haba yaraatee dembiya oo ognahayna ma jirto dawladdu idaa kulli waxay sheegi doontaa laakiin raggii weydii lahay waa ragga shaqada kule amaana matala arrintaas ay u taallaa waxaan rabnaa anaga nolosheena si degdeg in looga soo jawaabo deegaankayna waxaa waaye intaasoo dhibaataha gaartay xabashadaas ayaan nahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan leeyahay dadkaas xilli waqtigay ahayd la jiifo hubkaas guryaha uu yiilay ninba guriga u yiil ma diidin annaga in laga shakiyey oo dawladdu ay ka shakisay hadday soo doonato ama ay qabsato iyadaa xur u ah laakiin inta guryihii la jejebiyo xaafad dhan la dhagalo la jejebiyo albaabada la ballaqo hadduu dukaan yahay hadduu guri la jiifo yahay hadduu ceel yahay in inta la baabi'iyo wixii la raba lagala baxo oo sidaas loo maamulo cadowga loo bannaan dhigo dukaamankii hantidii lala baxo dadka ku jira qaarna laga tago qaarna la wato qaarna duurka ku baqdo wixii soo harana ay wataan intaas ayaan cabaash ka nahay inagu ma diidayno nin la tuhmaa ama dad dembi galay oo la raadsanayo laakiin xaafad dhan ayaa la bi'iyey guryihiyaa la ba'shay dadkiyaa wax cararay naagihii iyo ilmihii la falahiyey wixii cararay maahan wixii kalena waa la watay wixii guryaha yiilna waa la qaatay ama fududoo lacaga ama hub ah ama risaas ah ama hambaag wixii dhanna waa lala tegey waxaan leenahay marka dawladda arrintaas xaggeedii ka timid oo hadda ma lihin dad shacaba ama qabiilhana yeelay wixii ay lagu qabatay dawladdu inay ka jawaabdo jawaab naga siiso dawladdaan leenahay waxaan kaloon baaq u jeedinaynaa dadka aan ku abtirsanno oo magacaas ku abtirsada oo dawladda ku jira oo ama xildhibaan ah ama sargaal ah ama wasiir ah ama wax ka qaban karo arrintaas wax ka qaban karo inay wax ka qabtaan soo jeestaan hadalkeenna fiiriyaan dhibaatada dhacda fiiriyaan intaasna waan codsanaynaa waxaan u sheegaynaa qabiilka dawladdana waxaan leenahay dhibkaas ayadaa nagu dhigtay waxaan ku mutaysanayaa laga rabaa hantideenni iyo dadkeennina waa u baahna waa daba joognaa asagoo jooga guryahooda la joogaan xilliga la jiiftay 8 saac oo habeenimo ayaa waxaa u soo dhacay ciidamo dabaabaad wata oo baabuurta gaashaamanoo maartay nalku u dansan yahay wataan waxay ku soo weerareen dadka guryahoodii waxayna la baxeen dad dhalinyaro ah oo guryahooda joogay oo xaafadooda joogay oo ilaashanaya hantidooda haddii ay tahay ceel iyo haddii ay tahay dukaamo dadkaas waxaan codsanaynaa dawladdu inay arrintooda wax dad dawladda diidan maahin mana ihin dad hadda maaragtay wixii maamula duraya waxaan se codsanaynaa in dadkaas iyo hantidaas si oo maaragtay wax looga qabto wixii maaragtay sharciyana oo hadda inaan marnaahu waa la muhuraan hase yeeshadeeda waxa jiraahu waxaan doonaynaa inaad arrintaas oon cabasho ka nahay ceelkii waa dansan yahay dadkii daarayay ama ka shaqaynayay waa la qaaday furahoodii waa lagu qaatay waxaa ku ooman wax gaaraya oo nafleeya kumaan kun gaaraya ilaahay amarkiis waxaan codsanaynaa marka in arrintaas noola fududeeyo dawladdu ay noo fududeyso wasalaamu calaykum rabnaa dhalinyarada inay meel noogu sheegaan 6 dhalinyarada ahaa aan ka rabnaa iyo hantidii naga maqneed qoryihii oo ilaa lagu sheegay 5 qoray 5taas qoray iyo 6 wiil ayaan ka rabnaa maamulka gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye ilaa wala weyn meesha ay jiraan marka ka doon dheer ahaan xoolahayna waxa waaye waa doonaynaa iyo wiilashii dad waxa waaye raadkood ku daba joogaan ahnay oo walaalahood ama waalidkood ah ama isla lasheen marka hadii dawladdii ay noqotay waxa waaye qabiil ay noqotay oo waxa waa la isbeegsanaa marka waxaan leenahay hanagala soo jawaabo codsigana laga soo jawaabo fariintaas laga soo jawaabo arrin yar oo naga soo gaartay deegaanka Doondheere degmada Doondheere rag yar oo maarkan walaalahayna oo deegaanka u dhashay ayaa naga maqan waxaan rabnaa dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo maamulka Shabeellada Hoose waxaan ka codsanaynaa raggaas naga maqan iyo hantidooda inay noola raadiyaan ama noogu sheegaan
waayo waxaan u jiifo weynay in guriyana u joogi weyno waxa waayo dadaa naga maqan dad noolaa naga maqan waxay ku maqan yihiin ma naqaano waxaan rabnaa dadkaas in noola raadiyo maamulka afgooyaan joognaa waxaan rabnaa inay nala raadiyaan dawladda nala raadiso waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay dadka raadiyaan waa dadkeena waa dad maarkan hermi ah waa dad iska herbaadiya waa dad alla kuma sameeyay xoolo dhaqato iska in haween 8 saac loo yimid la sheegay meelay ku maqan yihiin hadda ilaa haddana meel lagu sheegay ma garanayno waxaan codsi ku dirsaynaa dawladda Soomaaliya inay ma arko dhalinyaradaas masaakiinta ah oo deegaankooda ku joogo oo guryahooda meeshan soo keenay waa dareenahayo oo ugu cabanayna dawladda kana cabanayno ayagaan u cabanayna dawladda Soomaaliyeed ayagaan ka cabanayna dareenkaas oo saaka ka yimid degmada Doondheere oo hoos tagto maamulka koonfur galbeed annaga xalay 8 saac habeen uu soo dheelmaday dad iska miskiina marisa jilaal joogo abaar haysato biyay cabi lahaayeen iyo ninka maamulay iyo dad iska masaakiin shacab ay ogyihiin inay soo weeraraan hubkoodii ayaga isku qaataan 8 saac habeenimo ciidankii dawladda cadawga loogu talagalay in annaga noola adeegsado nugula miro ayaan ka cabanaynaa marka koowaad waxaan u cabanaynaa dawladda koonfur galbeed dhibkaasna ayada aan ku tuhmayno marka xigtana waxaan u cabanaynaa dawladda Soomaaliyeed intaas ka bacdi annaga haddaan nahay beesha mursade waayaanba waa cabanaynay oo dhanka magaalada ama dhanka waqooyiga ka cabanaynay laakiin Doondheere waa ka cayman meeshii ugu dambeysay maanta joognaa marka waxaan leenahay dawladda ragaan ugu matalo siyaasiyiin ninka la yiraahdo haddii wax dhacaan dadku bilaadanka qalad waa galiyaan haddii aan qalad geysan maamul aan leenahay odayaal dhaqan aan leenahay war hebel ninka la yiraahdo ay yimaadino meel hebel ay yimaadino maamulka u yimaadino hadda u baxaan dadku waa la yiraahdaa laakiin si dad dawladdiida in 8 saac weynimo la soo miro dabaabaadka ciidanka oo dadku ku ilaalinaya haddana ku dhibaateeyo ayagoo naafaha qaarkood baa war la saaro arrinkaas ma qaadan karno waana waxaan ka cabanaynaa maanta meeshaan iskugu imaanay dawladdan waxaan rajaynaynaa in ninka la yiraahdo dadka naga maqan iyo hubka naga maqan dadka masaakiinta oo dadka maqan u dhibaataysan aan la soo koobi karin maxaa yeelay waddanka abaaro badan ka jiro halkii meeloo biyaha laga cabaayna maamulkiisii waa la wataa 8 saac dadkii lagu difaaci lahay irsaasti loogu talagalay meesha in lagu difaaco hadda qof cadow lagu leeyahay waa la qaatay marka annaga arrintaasaan ka cabanaynaa maanta odayaasha iyo dhalinyarada iyo halkan waxa joogo dhan cabashadana waxaan ku diyeenaynaa dhanka dawladda ay ugu horeeyaan nimanka dawladda lagu matalo waayaanba cabashadayna waa iska dhageysanayeen haddana waa ugu sii daraynaa oo ugu horeeya maamulka afgooye arrintaas waxaan rajaynaynaa in si dhaqsi wax ugu qabtaan nimankaasna ninka la yiraahdo meesha ay jiraan iyo hubkooda ay keenaan meelna ku sheegaan ninka la yiraahdo wix lagu haystaan ay soo sheegaan